waxanahay wahdiga dugsiyada waxanahay wanada macalinka waxanahay wahdiga dugsiyada waxanahay wanada macalinka. Welcome to School of Redeemed Smith Primary School, the program of distance learning. kusoo dhawaada waxa weeyaan dugsiga Redeemed magacayga waa Cabdullah Maxamed Umar, teacher of Abdullah casharkan bilaaban date which was 13 of bisha first 13 2020 fasalkiisa grade fasalkiisa grade subject maadada waa English topic موضوعي محوري وباص في سبسية subtopic موضوع سيركي محوري وسيمبل present tense passive. هذيك هذا previous lesson 10 كلمة هاي بنكون نقولنا the previous lesson 10 كلمة هاي we have studied وحنا نسوق على simple present tense active voice وحنا نسوق على simple present tense أو عطف الفعل and the usage يستعملها of simple present tense. Yes, simple present tense. We have mentioned that the present simple present tense and the present simple is used for an action which happiness has repeatedly or habitual action or every day or every week and they are an active voice ممكن نقولها لأنه أذكر في الفرعون tennis كمية هي present continuous tense it has two auxiliary verbs واحد كمية هي وضفع العامية and they are لبدا سمح يجيهم ودو يداس and third بيسي نقولها ممكن هي active voice كم أذكر في الفرعون third بروح present. In this lesson أضل 10 كم we are going to learn عشان نروح الكتب عندنا. In this lesson 10 كم we are going to learn وحنا الكتب عندنا simple present tense passive voice. simple present tense هو حبكة passive voice كمان أما عدك عاجز كده أما عدك عارف الفعلين so سيدا درتي in passive voice عدك عارف الفعلين أما passive voice كما يقعنه tennis simple present tense ممكن tennis كلية هي simple present tense has كلية هي tennis كلي وحولية هي three auxiliary verbs صدق فعل عامية ليه والله استعماله tennis كلي and they are وحاليا يصير خلاص is وحال بيصور على active كا إلو قاطع لذا auxiliary verb أو كلا do يدس هل كلمة markuu baas qoyskayga yahay waxa uu leeyahay saddex auxiliary oo am is and are saddexdaas u qaadanaya way I take am ay wax qaadanaysaa am oo waxay qoraysaa I am we you they waxay qaadanayaan are we you they take are we you and they waxay qaadanayaan are he she and it waxay qaadanayaan s verb buu isbedelaya markuu active voice yahay waxaynu soo sheegnay verb inuu yahay present ama original verbka asalka past voice markuu yahay verbkiisu wuxuu noqonayaa past participle ama waxa oo verb 3 ama verb 3 waxa loo yaqaano ayuu noqonayaa markuu active waa verb 1 markuu past voice yahayna waa verb 3 examples tusaalooyin banana is eaten muuska waa la cunaa baa cumar baa cunaa waxay soo sheegeen casharka hore difference u dhexeeya passive iyo active. Passive voice waxa la soo horeysiiyaa object soo horeeya. Active voice kana subject la soo horeysiiyaa. Imika kan waa passive voice waxa soo horeeya object soo horeeya. Imika banana object muxuu ahaa receiver of action ficilku ku dhacay. Banana muuska is eaten muuska waa la cunaa waa simple present tense waa macno walba by cumar marka la sheegayo subject by ayaa lagu horeysiinaya tabalo albaabka kasoo badi albaabki waa la furay albaabka by abdi baa furay
The window daaqada is closed. daaqada waa la xiraa. yaa xiraa? waa la xiraa.